السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كحرن كنال كنا إيش عيارها فضلا كسر هذا مقال عصب أو كترسن حبنتني ورك عيارها وإن سجارة وفلنقين دونا كلنك الكلاسيكو إحمر دونا كحار ريال مدريد يا برشلونة كحار ريال مدريد يا برشلونة أياسي ودونا حفلتن كوي تاريخيها عاوة عيارو إن تاي الكلاسيكو دي وين السنة دي جدا بيجي tartanka lagu jiro hanashada horyaalka La Liga ayaa ah mid aad u adag iyadoo ay hadda horyaalka ka harsan yihiin 9 ciyaarood kaalinta koowaad waxa ku jirta kooxda Atletico Madrid oo leh 66 dhibcood Barca oo ku xigta ayaa ka hooseysa hal dhibic oo kaliya halka kooxda Real Madrid ay ka hooseyso 3 dhibcood kooxda Atletico horyaalka ayaa bilowgii u muuqday mid ay ku kaliyeystay kooxda Atletico balse qaybtii dambe ee horyaalka ay kooxda Atletico la kulantay dhowr dib u dhac taasi oo u ogolaatay kooxaha Barca iyo Real inay ku soo dhawaadaan yareeyana farqiga u dhaxeeya iyaga iyo hogaamiyayaasha waxaana in lagu baraarugsanaado mudan in haddii horyaalku uu dhamaado iyagoo laba kooxood ay hogaanka wada hayaan iskuna dhibac yihiin sida tusaale ahaan Real iyo Barca oo kale aan loo eegi doonin farqiga goolashooda balse loo eegi doono natiijada labadii kulan ee ay foodaystareen haddaba arrinkan ayaa ka dhigi kara macquul in El Clasico-dani ay go'aamiso horyaalka cidda hananaysa sidoo kale waxa macquul ah intani ay noqonayso El Clasico-dii u dambeysay ee uu ciyaaro xidiga Lionel Messi iyadoo mustaqbalka xidigan ee kooxda Barca aanu wali cadayn inkastoo ay taasi jirto haddana xidigan oo soo joogay kulamo adag oo kanoo kale ah ayaan ku qanci doonin inuu ku baxo wax ka yar 3 dhibcood iyo bandhig cajiib ah ciyaartan aadka loo sigoyo ayaa bilaabanaysa saacada geeska Afrika marka ay tahay 10 habeenimo ciyaarta ayaa ka dhici doonta garoonka Stadio Alfredo de Stefano oo bila taarabuun ah garoonka kooxda Real ee Santiago Bernabéu ayaa sida aynu badankeenu ka warhayno dib u habeyn ku socotaa halka taarabuun la'aantana sababtiisu tahay xadidaadaha cudurka corona oo wali la qaadin Los Blancos ayaa uu ka maqnaan doona kabtankooda Sergio Ramos oo wali aan ka soo kaban dhaawac ka soo gaaray ruuga waxa sidoo kale kooxdan ka maqnaan doona xidigaha muhiimka ah ee kala ah Dani Carvajal iyo Eden Hazard dhanka Barcelona hadaynu eegno xidigaha Gerard Piqué iyo Sergio Roberto ayaa shakil gelinaya balse waxay u badan tahay inay safan doonaan xidigaha kala ah Philippe Coutinho iyo Ansu Fati ayaa iyagu maqnaan doona kooxda Real ayaa la filayaa inay ku soo bilaabato shax ah 4-3-3 ayna ku soo bilaaban doonaan xidigaha kala ah Courtois, Vasquez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Cruz, Asensio, Benzema iyo Vinicius Junior Barcelona ayaa la filayaa iyadu dhankeeda inay ku soo bilaabato shax ah 3-5-2 ayna ku soo bilaaban doonaan xidigaha kala ah Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet, Desti, Dion, Busquets, Pedri, Alba, Messi iyo Dembele haddii aanuna ciyaariyaha kulmeen labadan kooxood Real ayaa guul gaadhay 97 kamid ah kulamadaasi halka Barca ay guul gaadhay 96 52 ciyaarood ee soo haray ay labadan kooxood galeen barbardhac Real Madrid ayaa guuleystay 17 kamid ah 22 kulan ee ugu dambeeyay ee gurigeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga Los Blancos ayaa dhaliyay ugu yaraan 2 gool 8 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee gurigooda ku ciyaareen horyaalka Barcelona ayaa guuleystay 9 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee banaanka ku soo ciyaareen Catalaniska ayaa yana dhankooda dhaliyay ugu yaraan 2 gool 7 kulan ee ugu dambeeyay ee ay dheelaan horyaalka Real Madrid ayaa guuleystay 2 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee ay iska hor yimaadeen kooxda Barca dhammaan tartamada oo dhan markii ugu dambeysay ay 3 kulan oo xiriir ah Real dhinaca dhulka u dhigtay kooxda Barca ayaa ahayd sanadkii 1978 Barcelona ayaa dhankeeda guuleystay 5 kamid ah 7 kulan ee ugu dambeysay ee ay booqdaan kooxda Real Madrid dhammaan tartamada oo dhan inkasta oo ay guul daraysteen markii ugu dambeysay ee ay gegada Real booqato bishii March ee sanadkii tagay Real Madrid ayaa laga guuleystay kaliya hal kulan 19 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee horyaalka dheesho halka kooxda Blaugrana aan marna laga guuleysan 19 kulan ee ugu dambeeyay ee ay dheesho horyaalka La Liga asxaabta nagu xidhan intaas ayuu ku eegyahay muuqaalkan oo ka tirsan xubinteena wararka ciyaaraha oo waliba aynu si gaar ah ugu falanqeynaynay kulanka El Clasico ee aadka loo wada sugayo ee caawa dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona wixii faalaah ee aad qabtid fadlan noogu reeb qaybta commentiska
hana ilaawin inaad like share iyo subscribe ka caawisid kanaalkan si aynu u wada gaadhno 1000 subscribe ee ugu horeeya waa anigoo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu